kadib markii waddanka Nigeria uu ka qarxay dagaal sokay ayaa ciidanka militariga waxay isku dayeen isla dagaalkaas inay kaga faa'iideystaan inay dawladda afgambiyaan inkastoo ay saas tahay madaxweynaha ayaa wuxuu ku fikiray in qabiilkiisa uu la tashto kadibna ay u noqdaan difaac sidaas ay tahay waxa soo baxay nin lagu magacaabo General Mustafa oo ah hogaamiyaha mucaaradka waddanka isna wuxuu ku fikiray in madaxweynaha iyo qabiilkiisa uu baabi'iyo arrinta siday saas u socotay waxay isku bedeshay dhinaca kale oo ah arin mabda'eed waxa bilaabatay waddanka in mabda la isku ugarsado qof walba mabdiisa isagoo loo kaashanay in lala fiirsado qof walbana meeshiisa lagu dil waddankii ayaa wuxuu sii galay xaalad kale oo cakiran dawladdii waxa ku adkaatay inay waddanka xakameyn weyso sidaas ay tahay Mustafa hawshiisa ayuu sii watay qabiilka madaxweynaha ka soo jeeda ayuu dhinac ugu gaarsanay iyagana inkastoo xaaladdu ay saas tahay shacabka waddanka ku nool qaar ka mid ah oo islaha waddankan wad ka baxsanaysaan ayaa isku day inay baxsadaan kuwii kalena waddanka ku soo hareen waxay islahaayeen waxa imaanaysa United Nations oo iyadana idin sameynaysa gargaar degdeg ah dhanka kale Mustafa ayaa wuxuu noqday madaxweynaha waddanka safaaradaha ajnabigana wuxuu ku amray inay waddanka iskaga qaxaan waayo iyaga qowlaasaa waddanka dambeeya markabkan aad arkaysaan waa saldhig Mareykanka uu ku lahaa waddanka Nigeria badiisa sidoo kale waxaad arkaysaan inuu soo daadgureynayo dadka ka shaqeynaya safaaradda ku tiili waddanka Nigeria Mareykanka ayaa wuxuu ballan qaaday inuu kala baxo dadkiisa waddanka Nigeria gibi ahaan kadib markii Mustafa oo ah madaxweynaha waddanka hadda talada haya uu ku amray inay isaga baxaan waddanka safaaradaha ajnabiga sidaas ay tahay Mareykanka kaliya waddanka ma bixinayo dadka shaqaalaha u balse wuxuu ka bixinay dhaqaatiirta idil war degdeg hadii soo gaar wuxuu sheegayaa madaxweynaha iyo familkiisa oo idil hadda in la laayay dilkaasna waxa ka dambeeyay madaxweynaha hadda talada waddanka hayo ka soo ballan qaaday inuu madaxweynaha iyo familkiisa studio Famcoach Mogadishu sidoo kale waxay indhahay u qabanayaan dhaqaatiirta gargaar degdeg u fidanaya shaqaalihii ku soo waxyeeloobay waddanka Nigeria safaaradaha ku yiri waxa sidoo kale intaasi dheer militariga ayaa waxay isku diyaareen inay soo badbaadiyaan dhaqaatiirta waddanka loogu soo tagay kuwaas oo ilaa iyo hadda waddanka badbaado ka sameynaya waan ku salaamay la kulankaaga aad ayaan ugu faraxsanahay maasan taliya dhalinyaro waa daaladii safar ayaa ku timaadeen waana sanaysaan hawl culusna waa aad galaysaan la socdo midaas اوكي مدن midda kale waxaa idinka doonayaa dhaqaatiir tuulo meeshaan ku go'doonsan in aad soo furataan warka hadda waa idin dul maray markaad nasataan kadib ayaan intii dhiman idin dhammaystirayaa ee ordada dhakhtarka la soo kulan waya tali digtoonow taliyaha soo socdo akhyaare fadhiista dhammaantiin raashin waa cunteen baan filayaa operationka ugu horeeya waxaan idinkaaga dirayaa abuuja meeshaas dhibaato fara badan ayaa ka taagan waana operation qarsoon abuuja waxaa ka dhacday in madaxweynaha hubkii oo dhan lagala wareegay nasiib xumo annagu way noo suurtageli weysay in aan hubkaas dib u soo celin hubkana wuxuu gacanta u galay qolyaha mucaaradka ah midda kale operationka gaarka oo meeshaas idinkaaga diraya ayaa waxay tahay gabadhan lagu magacaabo liina oo ka tirsan dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayada ayaana loo baahan yahay in aad dib uga soo celisaan halkaas oo aad soo badbaadisaan gabadhaas ninkeeda ayaa hogaamiye u ahaan jiray dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn nasiib darro wuu dhintay balse waxa kaliya oo la rabo kaligeed maahan in aad soo badbaadisaan 3 qof kale ayaa la socoto waana aad soo wadaysaan waa haddii ayaga ay raalli ka yihiin midaas meesha ugu daran waa Michelis mission meesha la yiraahdo haddii halkaas aad ka soo badbaadaan waxaad soo aadaan dhanka webiga markaad dhanka webiga soo aadaan kadibna waxaad imaanaysaan xuduudda Algeria ogaada meeshaas haddii aad cagtiina saartaan in aad noqonaysaan cadowgooda oo aysan nimankaas idin dhaafayn wax su'aal miyaa jira
taliya hadday dagaal nagu qaadaanna waxaad sugaysaan ilaa adinka xabad ay idinkaaga bilaabaan adinka wax xabadaha bilaabinina taliya barnaamijka meesha aan ku galayna muxuu yahay halkaas markii aad ka soo baxdaan waxaad imaanaysaan xuduudda Cameroon annaga ayaana halkaas idinka soo qaadayna su'aal kale miyaa jira waa tahay waa tegi kartaan hadda أصحابي ودي مقلس أنا ومالين 3 دقيقة اسكو ديارية مدة ذاك الوقت قانا شروطها باراشوتكا كود وين أوكيال كشتا كدب كوفيدا كدب أسكو بيسا أكسجين وكوفرين هاي مدة ذاك المشهد كنت جايسان ما أهان ميل عادية وميل عذو ودقين هاي وحلو بها هي نفتي نيتي كان يناد بدبايسا وين الألارم يكون حساب تنطان وحنا لقاري حلي قاعد بودي لهذين مرور بوحة مهمة إن تحدرتان ولبتيني يوتن قفك كالي نصر